Sheekadani waa sheeko run ah oo Qur'aanka ina loogu sheegay. Sheekooyinka ilmo stories. The people of the cave. Asxaabul Kahf. Sheekadani waa sheeko run ah oo Qur'aanka ina loogu sheegay. Waxayna ku dhacday koox rag ah oo seexday hog madow oo ku hoos yaala buur weyn. Waxayna hurdeen 309 sannadood. maalmaha ka mid ah magaaladii wiilasha ay joogeen waxaa ka jirtay xaflad weyn oo dadka oo dhan isku soo baxeen. boqorkii magaalada ayaa isna soo baxay maalintii. Wuxuu ku soo fariistay kursigiisii weynaa ee boqortooyada. Wuxuu daawanayay dadkiisa oo faraxsan oo sanamyadii ay caabudayeen u keenayaan waxyaalo maanta oo dhan. dadkii magaaladaas iyo boqorkooguba waxay aaminsanaayeen sanamyada. Waxay moodayeen inay sanamyadu siinayaan cunto, caafimaad iyo taajirnimo weyn. Shaydaanka ayaa sidaa ka dhaadhiciyay oo ay moodeen inay run tahay. koox wiilaloo dhalinyaro ah ayaa waxay yimaadeen goobtii xafladuhu ka dhacayeen. wiilashani waxay ahaayeen wiilal aad u qalbi nadiifsan. wiilashii ayaa aad u nacay waxa ay dadku sameynayeen. wayna ka dhaqaaqeen goobtii xafladu ka socotay oo isaga baxeen. waxay tageen geed weyn hoostii. shir ayay wiilashii halkaa ku galeen. waxayna go'aansadeen in ay dhisaan masjid weyn oo ay Ilaahay oo kaliya ku caabudaan iyaga iyo intii soo raacdaba. dadkii xumaa ee magaalada deganayay sanamyada caabudayay ayaa markii ay arkeen wiilashii inay masjid dhisteen oo Ilaahay caabudaan ayay waxay ku dacweeyeen wiilashii boqorka. boqorkii sanamka caabudayay ayaa wiilashii loo sheegay. boqorkii sanamyada caabudayay ayaa markii uu maqlay wiilashii in ay masjid dhisteen wuu xanaaqay. si weyn ayuu u xanaaqay. wuxuuna u diray ciidan soo qabta wiilashaas. wiilashii yaryaraa ee fiicnaa ee Ilaahay aaminsanaa ayaa lasoo qabtay. silsiladaha lagu soo xirxiray. dhul qabow ayaa la soo jiiday. waxaana la hor keenay boqorka maxkamadiisa. wiilashii ayaa maxkamadda waxa lagu weydiiyey ma ka soo noqonaysaan ilaah caabudida aad caabudaysaan ilaaha kaliya. markaaba waxay yiraahdeen kama soo noqonayno. ilaahayagu waa kacay ee dhulka sameeyay ee idinkanayna abuuray. anagu ilaahay unbaan caabudsanaanaynaa umana garab dhigayno ilaahyo kale. wiilashii waa la xiray. markii la xiray ayaa waxa jirtay daaqad furnayd. waxay u arkeen in ay halkaa fursad ka heleen. wiilashii ayaa xorriyadooda qaatay. waa ayna baxsadeen. wiilashii yaryaraa ee Ilaahay aaminsanaa way ordeen. haddana ordeen. waxay arkeen hog weyn oo madow oo buur ku hoos yaala. hoggii ayay hoos galeen. waxay ka fikireen ilaa imise ayay halkan isku qarin doonaan. ilaa imise ayay halkan fadhiyi doonaan. yaa reerkoogii u sheegaya. yaa waalidiintoodii ogeysiinaya meeshay joogaan. wiilashii dhalinyarada ahaa ducooyinkii ay ku ducaysanayeen markaa waxaa ka mid ah aayadda 10aad ee suuratul kahf ku jirta ee oranaysa إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. waxay macnaheedu tahay markii dhalinyaradii ay hogga u hoydeen waxay yiraahdeen rabbigayow naga sii xaggaaga naxariis noogana dhig arrinkeena wax hagaagsan oo hanuun leh. wiilashii markii ay ducadii dhamaysteen way seexdeen. laakiin ma ay seexan hurdo yar ee waxay seexdeen hurdo qaadatay in ay hurdaan 309 sannadood. cadceedda ayaa 100 jeer kasoo korbaxday wayna dhacaysay. sidoo kale
dayaxa ayaa isna soo baxayay wuuna dhacayay. ugu dambaystii wiilashii ayaa kasoo kacay hurdada ayagoo yaaban. mid ka mid a ayaga ayaa wuxuu qaaday lacag ay markaa haysteen, wuxuuna u baxay suuqa si uu usoo iibiyo cunto ay cunaan. wiilkii ayaa waxa uu dhex galay dukaan, waxa uuna u dhiibay lacagtii uu sitay ee qadaadiicda ahayd. ninkii dukaanka iibinayay ayaa markii uu arkay lacagtii uu yaabay, waa uuna ka baxay dukaankii. wiilkii dukaanka soo galay ayaa sugay in uu ninkii soo laabto. kadib waxa uu maqlay ciidan iyo dad badan oo wiilkii dul taagan. dukaankii ayaa waxaa soo galay ciidankii ayaa wiilkii kaxeeyey oo waxay u geeyeen boqor magaalada markaa xukumayay. boqorkan ayaa wuxuu ahaa boqor ilaahay ka cabsanaya oo nin fiican ah, wuuna soo dhaweeyey wiilashii. sheekadoodana ilaahay wuxuu ku xafiday qur-aanka oo ay noqdeen sheeko la akhrinayo ilaa yowmadiin, ilaa inta aan adduunyada ka wada tegayno ayay sheekadoodu waartay wiilashaas.